Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaam dhammaan walaalayaal Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan. Waa mar kale walaashin xabsa shire kusoo dhawaada channelkayga hooyada maanta. Waxaan ka cudur daaranayaa maqnaashahayga oo aad u farabatay amahan dambo. Waxaan rajeynayaa insha Allah hadda kadib inaan dadaali doono oo marba isbuuciba hal video idin soo dhigo. maanta haddii aan mawduucayga horta intaan hore u guda gelin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan walaalihii gadaal nooga soo biiray iyo walaalihii hore ila jooga dhammaantiin aad mahadsantihiin jazaakumullahu khayr. waxaan rajeynayaa fiidiyoyada inaa asxaabtiina iyo walaalihiina iyo inta u qusteeyo waxa aan soo dhigo aa u share gareyn doontiin oo channelkana subscribe-ka aa wada saari doontiin insha Allah inta aan hore u saarin oo hadda kadib arki doonto videogayga. intaas kadib maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc aad muhiim u ah oo quseeyo hooyooyinka. hooyooyinka waxa waaye hooyanimada ma ahan wax fudud. markii oo yacni ama qashid gabar waxay leedahay uur hadhow cunugay dhali doontaa of course wax farxad leh waa maasha Allah inta aa haysanin ilaahay ha siiyo. waxa waaye farxad iyo reereen gabadh intay xaamilada taa waxyaabo badan ay rajeynaysaa markay dhasho waxay isleedahay cunugaa heshay yacni farxadaada way ku kamilmi doontaa hooyaa noqonaysaa maasha Allah. laakiin waxyaabo badan oo waxaa la xiriiro hooyada markii dhasho kadib ayaa jiro oo soo wajihi karo xaalado. marka xaaladahaas hooyada inay fahanto ee barato haddii lacala ay ku dhacaan ay tahay wax normal oo ayada kaligeed ahayn oo hooyooyin badan ee soo mareen aan rabaa inaan ka hadlo. maanta waxaa rabaa inaan ka hadlo walwalka ama isku buuqa ama yacni stresska hooyada ku dhaco xilliga ee dhasho kadib. hooyada markay dhasho kadib jirkeedii dhanaa isbedelayo mas-uuliyad cusub aa kusoo kordhayso yacni ayada dhan jadwalkeedii completely wuu isbedelayaa. marka waxyaabaha soo wajihi karo oo ay ka mid yihiin marka labada shay hadda aan ka hadli doono waxaa la dhahaa maxaa la dhahayay postpartum depression iyo waxaa la dhahaa baby blues. haddii aan kala qaadna labadooda waxay kala yihiin baby blues waxaa la dhahaa marka hore yacni hooyada inay dareento walwal ama ay dareento oohin oon xad lahayn dabeecadeeda inay isbedesho yacni ayadoo yacni la yaaban yacni maxaa kaa khaldan oohin oo yacni meel ka imaata aysan ogeyn aa iska dhacdo aa ku imaan karto hooyada. marka waxayna bilaabataa oohintaas ama depressionkan ama baby blueska wuxuu bilowdaa isbuuca ugu horeeya ilaa isbuuca labaad dhexdiisa ayay ku bilaabataa. marka calaamadaha waxaa waaye inay hooyada dabeecadeeda isbedesho inay ooyin ayna xakamay karin ee hesho inay daal far badan ee dareemto inay hurdada ee ku yaraato maxaa la dhahayaa hataa cunugeeda hurdaya xataa aysan seexan karin. xaaladana waxay ku dhacdaa inta u dhaxeyso hooyooyinka 70% ilaa 80%. waxaa jira hooyooyin ka hadlo iyo kuwa aan ka hadlin oo iskala aamuso xaaladan oo isla yaaban oo isle waxaan adiga kaligaa may ku haystaan laakiin hooyo adiga kaligaa kuma haystaan. hooyooyin badan oo adduunka daafihiisa joogaan way saameysaa xaaladan. waxa kaloo jiro markii baby blueska uu weynaado wuxuu noqdaa postpartum depression wax loo yaqaano kaasoo ah murug walwal oo ka khatarsan midka kaleeto uuna ka dheer yahay haddii la dhaho waqti ahaan oo kan waxaa laga yaabaa inuu sii joogo isbuucyaal badan ilaa bilo xataa intay noqoto. hooyada waxay dareemaysaa murug kaliya ma dareemaysa murug aad u badan way dareemaysaa. waxay kaloo dareemaysaa yacni inay rajo beeshay waxay dareemaysaa dambi waxay kaloo dareemaysaa in cunugeeda aysan yacni bonding la sameyn karin. bonding waxaa la lahaa connectionka hooyada iyo cunuga iyo hooyada ka dhexeeya like cunugaas marka aad dhashay jeceel inaa u dareentid adi waxaa rajeynaysay intaada dhalin ka hor cunug markaa dhashid inaa aad u jeclaanaysid laabta gelinaysid waqti la qaadanaysid laakiin bondingkaas ama la joogaas ama rabitaankaas cunuga adi aa rajeynaysa intaada dhalin ka hor waxaa arkaysaa inuu kaa maqan yahay iyo in cunugaaga aadan yacni raaxo iyo farxad iyo aadan ku dareemeynin agtiisa. ma marka qaar waxaa dareemaysaa anxiety ama dareemaysaa yacni walwal iyo marka qaar yacni inay dhibsato dadka aragooda ama la hadalkooda ama meel wasaq haddii aragto walkale waxyaabo ayada aad u dhibi jirin markay aragto ee iska sii socon jirtay hadda aad inay u dhibsato laga yaabaa. waxaa kaleeto oo dhacdo in ay maskaxdeeda kusoo dhacaan waxyaabo yacni cabsi inay yacni cunugeeda oo si naqday inay ka fikirto ama iyadoo nafteeda wax naqanayso inay ka fikirto like sawirro oo xun ama xanuun ama yacni aad u cabsi inay dareento ama maskaxdeeda ay ka sawirato ma fahanteen. so waxyaabahan aan sheegnay sidee hooyada u affect garayaan marka
hooyada waxay dareemaysaa emotionally inay tahay hooyo xun, waxay isdareensiin waxay leedahay ani hooyo xun aan ahay, ani cunugeyga maxaa u jeclaan la'ahay, maxaan yacni uga fogahay oo dareenkii hooyanimada maxaa u dareemi la'ahay. waxaa kaloo soo dareemaysaa hooyada daal aad u fara badan, inay tabar dhan haysanin, inay hurdi karin, marka qaar cunto xataa aysan cuni karin, ama qaarna waxay ku waashtaa cuntada inay aad u cunaan, yacni qofka appetite-kiisa totally wuu isbedelayaa. waxaa kaloo dhaco markay ay imaato xiriirada gabadha ninkeeda nacdo ama dhibsato la joogiisa, faamiligeeda hadduu dad la joogo ama saaxiibadeeda ay rabin telefoon inay qabanin, inay dad la hadlin, yacni waxaasoo dhan inay nacdo, yacni waxyaabaha effectiga uu leeyahay depressionkaas oo hooyada ku dhaco xilliga umusha. marka maxaa la dhahayay inay cunugeeda keer gareen weyso iyo xanaaneyn weyso, ama nafteeda xataa ay dhibsato inay qabeysato ama ay istaagto ama nafteeda wax u qabsato, intaasoo dhan yacni aa ku imaan karto. sababtay u dhacdana waxaa waaye hormonal changeska hooyada ku dhaco, because hooyada hormoneskeeda waa isbedelaa, hooyada markay uur yeelatan hormoneska waa isbedelaa, markay dhasho kadibna hormoonka waa isbedelaa, oo kii naas nuujinta iyo waxaasaa isbedel badana hooyada ku imaanayo. waxaa kaloo dhacdo markii hooyada ee dhasho kadib xanuunada oo foosha kadib inay hurdo la-aan ku dhacdo, inuu cunuga kusoo jeedo daalka farada badnaay, because cunug dhan ee soo riixday ee hooyadan ee soo bixisay, ama waa lagu qalin, labada xaalad buu imaan karaa, hooyada haddii caadi u dhashay haddii la qalaba wuu ku imaan karaa depressionka. marka waxay u baahan tahay hooyada inay hesho recovery aad u fiican, yacni inay soo kabsatay u baahan tahay. waxaa kaleeto oo ay u dhacdaa sababtan yacni responsibilityga cusub iyo mas-uuliyaadka cusub ee soo fuulay ee yacni ay xamili karin, because hooyada markay keligeed ahayd nafteeda yacni iyo zawjkeeda bas, hadda laakiin cunugaa soo kor cunugaan say u hayn doontaa, hadduu saa naqda say yeeli doontaa, like mas-uuliyaddii soo kortay aa walwal aad u badan gelin karto, ma fahanteen. marka haddii marka hooyadan aysan helin caawimaad na way keeni kartaa, oo qof support gare keligeed ee meel cidlo ku noqoto oo ninkeeda uusan ka warhaynin, cunugii iida keliya la isaga tago, taasna way keeni kartaa depressionka. ama haddii hooyada ewl koreta ay qabi jirtay depression ama anxiety ay qabi jirta, ama troomo hore markay yareed iyo emotional struggles hore ee u qabta hadday jiraanne way u keeni kartaa. hooyooyinka sidee lagu caawin karaa markay xaaladan galaan? waxaa lagu caawin karaa inay hesho support from her family, oo dadkeeda inay caawiyaan, waalidkeeda hadduu joogo, walaaleeda hadday joogaan inay alaabta u dhaqaan, guryaha u nadiifiyaan, dharka u dhaqaan, cunuga ka hayaan, se u seexato, in la dhageysto ayadoo la xukminaynin oo waxaan maxaa la dhahayay waya u sheegane, ama saan maxaa u tahay, saan maxaa u dareemay adiga, dadka kale saan maha, like adoo judge gareynin ama xukminin oo waxay kuu sheegaysa dhan aad raddi ku sameynin, inaad dhageysatid wax qalbigeeda ku jiro ee u baahan tahay. waxaa kale u baahan tahay inay ka hadasho feelinkeeda, aysan qarinin, qof ay aaminsan tahay ee ku kalsoon tahay, saaxiibadeeda ha ahaadaan ama ninkeeda ha ahaada ama qof waalidkeeda ku kalsoon tahay, inay la wadaagto xaaladan, in gabadhan ay hesho nasasho, inay cunto oo nourishing food ee cunto, yacni cunto nafaqo leh inay cunto, exercise fudud iyo socod inay aado, waxay ka caawin karaan inay dhaqso ka recover gareyso depressionka. haddii oo xaaladda ay sii weynaatana in dhakhtar loo geeyo oo counseling loo sameeyo ama therapy loo sameeyo, daawooyin la siiyo haddii loo baahan yahay, oo hooyadan total ay hurdi weyso, hurdo la-aantana ayadan dhibaato badan ay leedahay. waxaa kaloo loo sameyn karaa qur-aan in la saaro, ayada adkaarta ee akhrisato, maadaama hooyada umul ee taa qur-aan aysan akhri karin, adkaaru sabaax adkaaru masaa ee akhrisato, suuratul-baqara gurigeeda ee ku daarato, ee ayada qur-aanka is saartay, ninkeeda subax salaad markuu soo tukado uu qur-aanka ku akhriyo, waxay ka helaysaa deganaan, xasilooni iyo niyad fiican. marka waxaan u sheegaa hooyooyinka xaaladan ku jiro ama hadda kadib arki doono inaysan ahayn hooyo daciif keligaa ma tihid, hooyooyin badan ayaa mareen xaaladan. hooyo walboo dhashana waxaa laga yaabaa qaar naga mid inay maraan, qaarka aan marin alxamdulilah, laakiin waa xaalad jirto oo dhacdo oo dadka ay maraan, ee hooyooyinka cusub ama hooyo aan cusbeen xataa hore ilmo u dhashay xataa marto, laakiin inta badan wuxuu ku adag yahay hooyada cusub hadda kuwa cunugeed ugu horeeya dhashay, because wixii dhan way ku wada cusubyiin, jadwalkii dhanaa ka wada bedelmaayo, cunugan mas-uuliyadan waxaan dhan waxay ku noqonayaan wax aad maskaxdeed uga weyn, laakiin way la qabsan doontaa. hooyo fiicanaa tahay, maxaa la dhahay cunugaagana ilaaha kuu dooray, alxamdulilah intaa dhahdid ilaahay baridid waa ka gudbaysaa. in lagu caawiyana ogolow, dadka u sheeg, la wadaag asxaabtaada, qofka zaaid ugu kalsoontaa ama ninkaaga ama hooyada hadday kuu joogto, ama qof adi aad jeceshaa markaas aa isleedahay qofka hadduu ku dhageysto wuu ku fahmi karaa aa leedahay inaad la wadaagtid.
waxaan rajeynayaa hooyo walba caafimaad inay ilmaheeda ku korsato antiin jazaakum allahu khayr. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.